annaga u dhalanay xiin dheere ceel garas ceel buur ceel lahel dhulkaas annaga garabla dhulkaas annaga u dhalanay annaga ka soo jeedna nimanka inii sheegayo nimanka soo socdaa waa gaalo ma u abtiri karteen mase taqaaneen meel ka imaadeen iyo caqiidadooda meesha annagu aan murtadka ku noqono ayaguna muslim ku noqonaysa ma noo sheegi kartaan waxaa jirtay la yiri meel la yiraahdo ruun sheelo waxa ku nooleeyaa la yiri 8 nin sagaal markuu dhasho nima ayaa ka dhintay 8 ma dhaafaan waa soo bariyana waa duceystaan waxay dhahaan ilaahu ruun sheelo rag naga wada barin oo meeshaas waa la fiican tahay war ninka aan inii ogoleen airport inaad dhisataan oon inii ogoleen caafimaad oon inii ogoleen waxbarasho oon inii ogoleen wax in alla inta ama dawlad leedahay ama maaragtay horumar leedahay aan idin ogoleen ee laga yaabo 15 sano oo nimankaas wadanka ay haysteen dib u dhac ku yimid inaysan ka soo kabsan 15 sano kale oo hoos inay dhigay dhaqaalihiina iyo dadnimadiina hoos inay dhigay iyo diintiina inaad maanta ay ka gadaan nimanka in la dhashana waa murtad annaguna muslimaana inay ka gadaan ee haddana ka qaataan waa aqal xumo ba in ka malisanin haddii la kugu sheekeeyay waxa inii soo socda cali horta cali inii ma soo socdo waxa soo socda waa dadkii u dhashay dhulka waa dadkii in la dhasho eelkiina aha waa dadkaad isku diinta iyo isku caqiidada ahaydeen annaga ahoo inii soo socona oo abtirka kula socdo annaga wax noo ka sheegaya meelkeedna ma taqaan ismaan war taqaanaan waxaad yeeshaan inaad maanta ay ka gadaan nimanka in la dhashana waa murtad annaguna muslimaana inay ka gadaan ee haddana ka qaataan waa aqal xumo ba in ka malisanin waxaan ku leeyahay allaha ku soo hanuunsho annagu dalkanagiyaan u soo soconnaa geedna ma qariyo ma joogi doono ma gamba doono waa isugu imaanaynaa insha allah haddii alla idmo nimankaasuna calankoodu waa dhacaye caqliga ayay inkaxadin waana soo soconnaa haddii alla idmo waana is arkaynaa insha allah biidnillahi kariim soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu